wararka naga soo gaaraya magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Itoobiya ayaa sheegaya in laga yaabo in dhibane maxbuus Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax laga sii daayo xabsiga dalkaasi Itoobiya. dadaalada uu wado ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa ila xoogaale waxay sheegayaan in laga yaabo maxbuuskaasi oo in muddo u xidhnaa Itoobiya inuu dib u helo xorriyadiisa. sida ila xoogaale oo ka agdhow saraakiisha nabad sugidda dalkaasi ay sheegayaan waxa laga yaabaa in maxbuuskaasi uu xorriyadiisa helo. sawirro cusub oo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya Cabdikariin Sheekh Muuse oo ku sugan meel u eg hotel. inkasta oo nafti hore Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax uu muujinayo calaamada ah inuu weli xidhan yahay, taasi oo la mid ah muuqaal horey looga soo qaaday xilli uu la sawirna Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland. calaamadan maxbuusnimada ah ayuu ku muujinayaa nafti hore Cabdikariin Sheekh Muuse inuu weli ku jiro gacanta dawladda Itoobiya. weli si rasmi ah looma shaacin xilliga rasmiga ah ee maxbuuskaasi la sii dayn doono, balse wararka ayaa waxay sheegayaan in rajo wanaagsan laga muujinayo in maxbuuskaasi loo sii daayo sidii loo sii daayay kumanaankii kale maxaabiista siyaasadda ugu xidhnaa dalka Itoobiya. iyaguna ka agdhow fila Soomaaliya waa halka looga arrimiyo dawladda Soomaaliya ayaa sheegaya in Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax laga sii dayn doono xabsiga. fila Soomaaliya ilaha ka agdhow ayaa sheegaya inay aad uga xumaadeen wararkaasi hordhaca ah ee soo baxaya, waxayna jeclaan lahaayeen in maxbuuskaasi uu weli ku sii jiro gacanta dawladda Itoobiya. wararka qaar waxay sheegayaan in madaxda dalka Soomaaliya ay dawladda Itoobiya ka codsadeen in iyaga loo soo gacangeliyo Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax, balse dawladda Itoobiya ayaa dalabkaasi ku gacan saydhay. horey madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaan ayaa sheegay inuu ka codsaday dawladda Itoobiya in la sii daayo nafti hore Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax. waxaa jira dadaalo fara badan oo dawladda Itoobiya looga codsanayo in dib xorriyadiisa ay ugu soo celiso nafti hore Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax, balse ilaa iyo hadda sida wararku sheegayaan rajo wanaagsan ayaa laga qabaa in mar kale uu dib xorriyadiisa u helo maxbuus Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax.